qaybtan waxa aan ku bilaabayaa hadal gaaban oo ka bixiyay fanaanka weyn ee Soomaaliyeed Cabdillaahi Qarshi qaabka iyo jahada isagu u arkayo inuu musiga Soomaaliyeed qaato. Cabdillaahi Qarshi waxa uu safka hore kaga jira dadka musiga Soomaaliyeed curiyay. hadalkan Cabdillaahi Qarshi waxa uu duubay muddo hore, balse marka hore aan ku bilaabo heesihiisii macaana hees kamida waa macaansada maanta waaciid. hadalkan maanta wuxuu ku saabsan yahay musiga Soomaalida. musiga Soomaalida sida uu berigii hore ugu muuqan jiray iyo sida uu maanta aanu arkayo waa kaaf iyo kala dheeri. berigii horeeto waxaan is oran jiray musiga Soomaalida haddii alaab badan u heshaan oo alaab badan ku tuntaan inta tan aad iyo aad buu uga wanaagsanaan lahaa oo uu macaanaan lahaa. waxana guntii aan soo ogaaday alaab badan haddaan noo helo horta inaanan waxba ku kordhineen. marka hadalkan maanta waxaan jeclahay dadka walaalahayga wax tumaa inay dhigaystaan oo ay ila arkaan halkeenu inta ku leenahay. isla markaa waxaan jeclahay dadka kale Soomaaliyeed ee dhageysanaya barnaamijkan isaguna inuu nala ogaado. haddaba alaabta badan haddaan helo waxaanan wax ugu kordhineen aan idin sheego. maanta haddii laga dhigo inaanu 10 qof oo Soomaaliyeed wax tumaa aanu 10 alaabood oo kala jaada aanu isula nimaadno oo aanu heelo kaliya ku wada qaadno, waxaan hubaa giddigayo codku siduu yahay oo kaliya ayaanu ku wada qaadi lahayn 10 alaaboodba. marka hugun iyo qaylaanu kordhinay maaha meeshii horta macaan iyo dhadhan midna kumaanu kordhineen. haddaba sida hagaagsan ee la doonayo ee macaanka iyo dhadhanka kordhin lahayd waxa weeyaan 10 alaabood in la kala qaybiyo oo midba wax gooniya tumo oo dabeeto wixii oo dhan isku darsamaan oo ay dhawaaq wanaagsan u bixiyaan. mid waxa laga doonayaa inuu codku siduu yahay inuu qaado mid ama 2 ama 3 hadda ugu bataanba. marka ay kuwaas sawdkii qaadaan 3 waxa laga doonayaa inay codka la qaadayo marka intiisa hoose la qaadayo ay iyagu dhawaaq dheer ku qaadaan. waana idin tusayaa iminka sawdkan ogaada la yiraahdo intiisa hoose oo caynkaasa oqoon la'aani waa iftiin la'aani. 3 waxa laga doonayaa inay kor ka qaadaan oo ay yiraahdaan la 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 la. marka intiisa sare la qaadayo oo ah inay hoos markaa u qaadaan oo waxay u qaadayaan la 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 halkay ka aan lahayd la 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 la. midna waxa laga doonayaa inuu codka horka wareego oo codka inanka qaadaya halkuu ka qaadayo intuu meel ka yara sarreysay intuu kaga soo qabto
uu si fududoo degdega hoos u dhaafo oo dabeedna sare ugu soo noqdo oo misna joojiskii ay isku soo gaadhaan